أمانة ولا للقدر الشناد كهد لله وحوي أثر الأمانة على الفرد والمجتمع هدي بلشدو تهي بلشة آمنة رادك أي كل هذا هي قفك إيه ومضبع رادك كوبادو حويان إن الله يحب الأمناء ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحبهم الناس لذلك dadka aaminka ilaahay waa jecel oo rasuulka jecel oo adduunyada dadka ku nool baa jecel gaal iyo islaamba qofka hadduu qof aamin yahay aqoontiisa amaanada laga horreeyo mushtariga waxay yiraahdaan businesska marka had iyo jeer ama dhaqaalaha la doonayo la horumariyo shaqaysato horta waa inaad qof heshaa ku shaqeeyo aamina kaasa kow laga dhigaa haddaanad qofka helin waxba hirgelin kari maysid Soomaalidana waxay yiraahdaan qofku ilaahay xoolo la doono dadkeedu siiya dadkeeda macnaa dad aamina oo hawl karaba ilaahay u siiya marka ummaddu way isku jeclaanaysaa jacaylkeenu baadi doonayna waxyaabo